السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله صومالي ذا ملك ستوديوتان waxaan idin leeyahay salaan boqortooyo waa walaalkiin Ismaaciil Arax dabcan ayaamihii ugu dambeysay waan iska mashquulay programkii iyo barnaamijyadii inaan idin wada way ahayd hase yeeshee mashquul adduunday awgiis ayaan xoogaa u yara hakad u galeen laakiin insha Allah waan idin wadi doonaa isku soo noqod wanaagsan waxaan rajeynayaa sidan anigoo caafimaad qabo u soo laabtay inaad adoo caafimaad qabto u soo laabatay waa walaalkiin Ismaaciil Xasan dabcan caaway waqti walba idin tahay waxaan idin la wadaagayaa message ama fariin kooban ama wacyigelin kooban oo yar oo aan isleeyahay wax badan ay noloshaada ka bedeli doontaa haddaba nolosha adduunka waa imtixaan adduunkan aan joogno waa imtixaan الله سبحانه وتعالى وملك امتحانك قاضي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نوى امتحانك ملك الله صدري هذا waxaan ka hadlayaa guusha inta lagu gaaro wax kala ma jirto guusha waxa lagu gaaraa saddex wax oo kaliya first of all in ilaahay subhanahu wa ta'ala aad aamintid si waliba strong ah aad u aamintid waxa mararka qaar kugu dhacayso xaalada adag waxa mararka qaar aad galaysaa shaqaad weynaysaa mararka qaar waxa kugu dhacaya xanuun xun waxa kugu dhacaya waxyaabo kala duwan ee adduunka ka soo bilaabay waxa laga yaabaa hooyada waalidka dadka dunida ugu jeceshahay inaad weydid waxa laga yaabaa qof noloshaada ku weynaa aad jeclayd inaad weydid waxa soo dhan wada imtixaan adduunka dhan waa wada imtixaan sidee marka imtixaanka looga guuleystaa waxay tahay karaali noqoshada ilaahay subhanahu wa ta'ala in ilaahay ka cabsatid labo in naftaada aad ku kalsoonaatid saddex inaad dadaashid markasta ogow nolosha markii lagu leeyahay failure markii lagu leeyahay qofkan wuu fail garoobay ama wax baad ku fail garooday waxay ingiriiska ku dhahaan first attempt in learning oo macnaheedu tahay markii ugu horeysay oo aad isku dayday inaad wax barato markii ay xaalado adag aad samaysid oo meelo badan no laga soo qoro markii jooyinka ay kugu soo xirmaan nodaas macnaheedu waa next opportunity inta waxay u taagan tahay next oodana waxay u taagan tahay opportunity oo macnaheedu tahay fursadda xigto marka waxaan dhalinyarada ku dhiirigelinayaa meel kastoo joogaan qof walba oo Soomaali ah oo maxaa la jiray hadaf leh noloshu way caqabado badan tahay laakiin maalinka aad fail garoobaysid oo aad laga guuleystay waa maalinka aad isdhiibtid maanta waxaan u soo galay inaan idin sheego inaad isticmaashaan laba eray we can do it I can do it inaad tiraahdo waan samayn karaa waxaan and I believe inaad samayn kartid inaad isticmaashid ereyga I can do I can win one day ilaahay kuma darnaadee waan guuleysan doonaa wax walbana waan samayn doonaa xaalad walba kugu soo kororto oo noloshaada ku soo korortana isku day in ilaahay kuma darnaadee hadda waxaysid adduunkan ma jiro problem weligiis jiri doono ma jirto arrin permanent ahaan karto xaalad kasto hadda aad ku sugan tahay permanent ma ahanayso haddaad dhaqaaleysatid oo nolosha ay ku kala kacsan tahay wallahi permanent ma ahanayso oo ma ahanayso mid weligeed sii jirayso haddii aad maanta xaaladda ay kugu adag tahay oo waxyaabo badan oo aad rabtay aad weyday wallahi hal maalin maalmaha ka mid ah yaa waxaas aad helaysaa hadduu ilaahay ka raali noqdo haddaadan niyadaada aadan isjabin haddii ducada aad wadid haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala aad mar walba tiraahdo xasbunallahi wa nicmal wakiil I can do it ilaahay kugu dhaarshay qof naftiisa aaminay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aaminay maxay tahay gidaarka ama darbiga soo celin karo haddii ilaahay subxaanahu wa ta'ala the one and only aad aamintay naftaadan aad kalsooni ku qabtid kalsoonida lagu sheegay waxay tahay awoodda dabiiciga ilaahay uu ku siiyay waa inaad ku kalsoon tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu rabaa inaad cashiro baratid nolosha lama rabo nolosha cashirada laga rabay inaad baratid inaad u fahantid nolosha nooc kale marka message-kan maanta waxa idinkugu talagalay waan igu dhiirigeliya waxay tahay waxaa jira nolol fara badan oo bini'aadanka soo wajaho waxay ugu guuleysan karaan in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ku xirnaadaan in ilaahay kuma darnaaday aad aqrisatid buugaagta successful ka dadka ah qof walba oo successful nolosha ka soo noqday
وقف صومري حالة أذك وحاجة نين لده مجري محلي يجري وانك أفراد حنجعلها ورغلها بدنا دونك وحلية هاي if you are normal you can never be rich ومعنى هذا تحي هذا تحي قف إسك عادي أو نلاش هذا normal إسك تحي ولي غني من غنيس ريج من غنيس مركز ضد كان نرولها أزازيك إلى كم ترى حالة هو أذك دوني صومره وضد كسك says فولكا إن شاء الله وحن إذن لو ذاك دونا هيستوريال أما شيكوين نبقى أو دوني كدعوي أو إلى كم درنا هذه نبقى بني لو ذاك دونا ينلاش بالعادة كسيدي إسكو بدري دونتو فيديو كان وامد أديك أنا هو ترى قلي وحنا أمسنا فيديو كان واحد بدل إنه كان بدل دونه you can do it واحد البوار سمين كرتا ياب you can do it سببته واحد هاي ميت كدوان ضد كلام every individual of us has a unique talent أو ضد كلام أيضا لسينين مركب أو إنها تاي مهم talentنا على هاي make sure you utilize your talents as you're supposed to do. So you guys, today I'm actually very humbled, I'm very honored, I'm very excited to be with you guys. I'm so happy to deliver this beautiful message to my friends because we are all here to make sure that we help each other by all means. Help can be achieved through message, through actually financial, through advice, through many other channels. So today and tonight, whatever time that you are actually on, I decided to convey this a little advice to you. This is a motivation from your brother Ismail to all of you guys who are watching this beautiful video. Especially, and I hope even my other non-Somali friends will be able to obtain or to benefit some of our discussions, and inshallah I'm trying to deliver some even kind of topic that is actually, as you know, you guys have been preparing such beautiful messages to my Somali people, and I also know my people understand English as well, and I also want my other global friends, my other international friends to understand as well. And inshallah guys, if you're new to my channel, please, I request you, I kindly beg you to subscribe to my YouTube channel. Guys, خير بدن بيريجنا ملك استوجوكتان هبينك مالك هايدين وانادو. Good night, take care.